bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena maanta oo aynu kaga hadli doono laba qodob aad u xiiso badan balse intaynaan bilaabin barnaamijka daawaday haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir siina sheergaree barnaamijka si uu gaado saaxiibo kale oo xiiseynaya inay warbixinaha noocaan ogaadaan mahadsanid mid ka mid a casharada badbaadada ee ugu horeeya ee aan ku baranno da'yaraantu waa fahanka macnaha nalalka ishaarada ee kala hagta baabuurta midabka casaanka ama guduudka loo yaqaano waxa uu taagan yahay istaag midabka huruudda ama jaaluhuna waxa uu taagan yahay diyaargarow halka midabka cagaarka ama akhtarkuna dabcan uu taagan yahay xorriyadda socodka ama dhaqaaq laakiin gudaha jabaan xitaa nalalka ishaarada macnaheedu waa wax ka duwan sida caalamka kale looga isticmaalo haddii aad weligaa fursad u heshay inaad booqato jabaan ama aad qorshaynayso la yaab maaha inaad aragto nalalka ishaarada kaasoo midabka cagaarka lagu bedelay midab buluug ah dabcan waa laga yaabaa daawada inaad isweydiinayso waa maxay sababta jabaan midabka buluuga u adeegsato iyo weliba sirta ka dambaysa bedelidda midabka cagaarna boqolaal sano ka hor luuqadda jabaanka waxaa ku jirtay kelmado tilmaamaya 4 midab oo keliya kuwaasi oo ah madow caddaan casaan iyo midabka buluuga haddii uu qof rabo inuu tilmaamo midab cagaara waxay isticmaali jireen ereyga ooi oo micnaheedu yahay buluug maadaama oo afkooda aanu ku jirin erey lagu tilmaamo midabka cagaarka ah nidaamkani waxa uu socday muddo dheer markaas oo kelmadda midori loo isticmaalay in lagu qeexo midabka cagaarka isbeddelkan lama filaanka ayaa ku dhowaad saameyn ku yeeshay jabaan balse ereygaasi ma uu hirgelin xataa maanta waxaad arki kartaa jabaan dhexdeeda in waxyaabaha qaar oo akhtar ama cagaar ah lagu tilmaamayo buluug iibiyaha khudaarta ayaa kaa iibin kara tufaax buluug ah ama canab buluug ah isagoo ula jeeda cagaar tanin xaqiiqadii kama foga nalalka taraafikada waqtiyadii hore jabaan midabyada ishaaradu waxay ahaan jireen sida caalamka kaleba ay yihiin oo kuma ay jirin midab buluug ah balse maadaama oo aan luuqadda jabaaniiska aanay lahayn erey lagu tilmaamo midabka cagaarka ah aqoon-yahanada afka ee jabaan ayaa waxay soo jeediyeen in midabka cagaarka lagu bedelo midab buluug ah kaasi oo ku jira ereyada luuqadda jabaaniiska tanina waa sababta ugu weyn ee loo bedelay midabkii cagaarna waxaan filayaa inaad si fiican uga badato qodobkaasi fikirkaaga noogu reeb qaybta faalada haddii aad ka heshay fadlan muuqaalka like saar qodobka labaad ee barnaamijkeena maanta daawaday haddii aad isweydiinaysay sababta ay hindida iyo qaar ka mid a shucuubta waddamada ku dhow hindiya ay u isticmaalaan dhibicda casaanka ee wejiga la mariyo ama sunniyaha dhexdooda sida kaaga muuqata sawirka waxaad kaga bogan doontaa qodobkeena labaad waqtiyadan dambe dhibicda guduudka ee hindidu isticmaasho waxay noqotay mid lagu qurxiyo dumarka xilliga munaasabadaha ama waqtiyada caadiga ah dumarka arooska ayaa loo mariyaa si loogu qurxiyo balse waqtiyadii hore dhibicda guduudka waxay lahaan jirtay ujeedooyin diineed iyo kuwa dhaqanba calaamadan guduudan waxaa loo yaqaanaa ereyga bendi oo macnaheedu yahay dhibic balse diinta hinduusku ay u yaqaanaan in ay tahay isha saddexaad ee bani aadamka ka ilaalisa in ay tamartu ka baxdo ama ay awoodda beelaan waa sida ay aaminsan yihiin hinduusku waxay aaminsan yihiin in qofka bani aadamka ah wejiga bartankiisa ku leeyahay dhibic daloosha oo ay tamarta ama awooddiisu ka baxdo waxaanay aaminsan yihiin marka dhibicda guduudka aan la mariyo daloolkaasi inuu awdmayo qofkana awooddiisu ay sii jirayso waxa kale oo ay aaminsan yihiin dhibicda guduudka ah ee bendi inay qofka u wanaajinayso fikirka iyo nasiibka kana ilaalinayso shaydaanka waqtiyadan dambe dhibicda bendi waxay noqotay mid keliya loo adeegsado isqurxinta waqtiyada munaasabadaha iyo aroosyada si loo muujiyo dhaqanadii hore ee hindida ay lahaan jirtay mararka qaarna waxaa diinta hinduusamku u adeegsataa inay ku calaamadiyaan qofka kusoo biira diintooda ilaahay ayaan ka magan galnay si ay ugu gartaan inuu qofkaasi hinduus yahay oo la diin yahay barnaamijkeenu maanta intaasi ayaa uu ku eeg yahay intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno sidaas iyo